maayarka degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo wehelinayo barasaabka gobolka saaxil fahmi cabdi bidaar ayaa maanta si rasmi ah u furay dhismaha wejigii koobaad ee biyo-mareen casri ah oo ay dowladda hoose ee degmada berberi ka hirgelinaysa xaafadaha daaroole iyo barwaaqo ee magaalada berbera kaasoo loogu talagalay inay biyuhu maraan waqtiyada xilli roobaadka oo ay gudaha magaalada berbera ay soo galaan daadad aada u xoog badani waxaana maayarka degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo halkaasi ka hadlay ka warbixiyey dhismahani biyo-mareenka cusub waxaana uu sheegay biyo-mareenkani ahmiyadda uu leeyahay magaalada berbera si magaalada loo dhaafiyo daadadka xooggan ee magaalada kusoo furma waqtiyada xilli roobaadka. marka labaad maanta waxaa farxad weyn noo ah inaanu cimiladii aan lahayn ayaan ku haminaynay sanadka 2014 oo ah in drainage system loo sameeyo degmada berbera oo casriya kiyoon maanta ku taagannahay rajaynayna insha allahu tacaala inuu noqdo inuu dhammaado intaanu sanadku dhammaanin isagu dhaqsaa badan leh aanu dhammaado sidoo qorshaha iyagu ahaa wuxuu ahaa qorshe aad u ballaadhan kharashkiisuna kharash aad u badan buu ahaa laakiin waxaan ku dhiiranay inaan intaan awoodnay aan qaban karno inaanu qabanno bilowno. barasaabka gobolka saaxil fahmi cabdi bidaar oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey qorshahan ay dowladda hoose ee degmada berberi ay ku dhisayso waxaana uu sheegay inay magaaladu aada ugu baahnayd biyo-mareenkani. markani kow maaha maanta waa bilowgii laakiin maantii surveyinka la qaadayay ayaynu hore u furnahayd oo aynu ka sheekaynay drainage-kan faa'iido uu leeyahay magaalada iyo guud ahaanba degmada kharash badan bay u baahan tahay dadka waxaa laga rabaa haddaba reer berberaad inay ku siiyaan deegaanka iyo maayarka arrintaa hormoodu ka yahay uu rabo inay daadadka kaga qaado drainage-ka ugu sameeyo si ay biyaha iyo daadadkuba uga baxaan iyo u tagaan badda u galaan. Khalid Xasan Nuur, telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV, magaalada Berbera.